بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن السلام أخيات الشرف الله حلي كستويدين تهي وعنو وناكسن ومركة لمقال عصب. فضلا هذا جنالك عصب تهي سبسكرايب من وصار وعن كل يسودو وانت موضوعين وحكو سابسين هاي ينين تناصاه إيوه سيدا لغو وينيو. qof dumar ayaan is weydiiyay su'aashana waxay dhexaysaa sidatan. Su'aal ayaan wataa kulimada naasahayga aad bay u yar yihiin. Ma sameeyaan isbedel kobac ah saasi ay tahayna waxay leeyihiin dareen xad dhaaf ah. Maxaa sababi kara kulimo la'aanta ma caafimaad darrada? Jawaabta: weynaanta naaska iyo yaraantiisa dareenka raaxada shaqo kuma laha. taasi waa midda koowaad. Tan labaad, naasyarida sababo badan ayaa keeni kara. Waxaa ka mid ah sababo dhaxal ah, gabadha inay ka dhaxasho hooyadeeda ama ayeedeeda ama asalkeeda hore. Sidoo kale waxaa keeni kara hormoonada jirka qaar inay yaraadaan. Sidoo kale fitamiinada qaar inay jirka ka baxaan. Taasina waxaa laga yaabaa inay ka dhalato dhiig badan ka baxo. dhiig badan ka baxa gabadha xilliga caadada ama siyaabo kale inay u yaraadaan fitamiinadaas. Laakiin qaabab badan ayaa jira oo dabiici ah oo lagu weyneyn karo naasaha. Waxaa ka mid ah gabadha inay jimicsi sameyso, dhaqdhaqaaq wuxuu u keenaa jira inuu dhiiga si fiican u wada gaaro xubnaha jirka oo dhan oo ay naasaha ka mid yihiin. Sidoo kale inay saliidda dabiici ah mariso naaska kuna daleegto habeen kasta sida saliidda xulbada. Sidoo kale inay qaadato cunto leh hormoonada estrogen loo yaqaano, kaasoo qaabilsan weynaynta naaska iyo muujinta naagnimada jirka uu leeyahay. Waxaana laga helaa tufaaxa iyo xulbada iyo digirta suuyada. Sidoo kale waxaa la helaa asoo kaniini ah. Muuqaalkeena halkaas ayuu nooga yahay. Fadlan hada channelka ku cusub tahay subscribe noo saar. Muuqaalkan hada ka heshay like noo saar. Waxaynu walaal video wixii su'aalaha qabto waxaad noo reebi kartaa barta commentiga. Assalaamu calaykum.